caawa waxaan halkan aan ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha mustaadka tiimka abaabulay waxa weeyaan aadka u gacan qabtay Maxamed Sulub aad baan ugu mahadnaqaynaa inta ka bacdi kollay kooxdu waxa weeyaan kooxdii tartankii waxay ka qayb gashay tartankii Ramadaan Seylada laga furay waxaanay soo ciyaartay 6 kulan 2 group stage-ka kulan knockout-ka iyo waxa weeyaan 2 kulan oo waxa weeyaan group stage kala oo finalkii lagu baxayay alxamdulillah ilaahay baa qadaray kulankii finalka lagu baxayay hadho waana ku qanacsanahay insha Allah kooxdana aad baa loo diyaariyay meel fiican way gaadhay sanadada dambena iyadoo sidan ka awood fiican oo ka wanaagsan barajeynaa inay ka soo muuqato aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqaynaa mar koowaad iyo mar labaadba gudoomiyaha mustaadka Maxamed Sulub bismillaah waxaan kulay halkan aan uga mahad celinaynaa Maxamed Sulub Salebaan oo ah dhiirigeliyaha tiimka annagoo ah tiimkii ka qayb galay tartankii Lixley Stadium ka socday kulay waxaan ku soo harnay soo fiilan annagoo ka qayb qaadanay 7 kulan oo 2 kamidana oo 3 kamidana banaato galnay midna nalaga badiyay midna aan badinay inta kadib kulay waxaan intan kadib aan ku sii danayaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa Maxamed Sulub Salebaan waxaan kala mahad celinayaa kabtanka tiimka Khadar Maxamed Qaalib iyo macalinka tiimka Macalin Mukhtaar waxaan kala dhamaan u mahad celinayaa ciyaartoydii tartanka aan kaga wada qayb galnay halkan waxaan uga mahad celinayaa tiimka ku ciyaarayay magaca Samgool aan taageero ahaa sanadkan aan ku jiray laakiin aan taageero ahaa oo meel fiican soo gaadhay aad u mahadsantihiin saaxiibayaal oo aad wadaasheen insha Allah waxaan rajeynayaa koobka dambe inaad meel fiican qaadi doontaan waxaan kala mahadnaqayaa cameramanada meesha jooga Arda Cable iyo Yol Sports iyo Samgool waxaan kala isagana mahadnaqayaa gudoomiyaha Maxamed Sulub oo dhalinyarta aad u dhiirigeliya kulay ninkii wax ku tarana maalinba beerkooga insha Allah waxaan rajeynayaa inaan aan abaalkiisa gudi doono waxaan mahad celinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala suukan keenay inagoo caafimaad qabna waliba ku jira bishii khayrka badnayd tobanka ugu khayrka badnaa ugu horeyn sidoo kale waxaan mar labaad u mahad celinayaa tiimkii dhalinyarada ahaa ku ciyaariyay magaca Samgool oo runtii muujiyay tartanka ka qayb galeen ciyaar wanaag iyo akhlaaq mararka qaar inaad koobka kaliya ku guuleysataa ma aha muhiimada tartamada loo ciyaaro laakiin kubadii aad soo bandhigteen iyo akhlaaqdii wanaagsaneed ee aad garoonka soo bandhigteen ayaa mararka qaar ka qaalisan inaad koobka guuleysato taasna waa mid dadweynihii daawanayay iyo kuwa aan xitaa daawan oo ay gaadhay runtii ay og yihiin kubadii qiimaha lahayd ee heerka sare ahayd iyo akhlaaq wanaagii aad ku soo bandhigteen garoonka runtii waan kaga mahad celinayaa sidoo kale waxaan mahad celinayaa kabtankii tiimka dhalinyarada soo ururiyay niman dhalinyaro isku jiila oo runtii aad marka loo eego kooxihii ka qayb galay waxaad ka mid ahaydeen ama aan oran karaaba waxaad ahaydeen kooxdii ugu daadyeerayd ee tartanka ka qayb gashay haddana runtii waxaa ilaahay loogu mahadnaqaa halka aynu soo gaadhnay iyo qiimaha ku soo gaadheen iyo awoodda ku soo gaadheen runtii waxaa la oran karaa uun waxaa idin reebay wuxuu ahaa nasiibka iyo qadarta alle oo halkaa ku qornayd waayo marna lama baajiyo qadarta alle meesha ku qoran tahay Khadarna isagana runtii waan mahad celinayaayo jiilka dhalinyarada gartay inuu tiim ka dhex sameeyo oo isu soo ururiyo kubadiyadu marka hore waa isdhexgal idinkoo haddana kooxo kala duwan u ciyaara heerar kala duwan ka ciyaara ayaa haddana Khadar go'aansaday isagu midho isaga anfacayo